السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Balqisho Shukri. waxaa idin soo jeedinayaa tafsiirka suurat ad-duha. Dinaysi wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. waxay soo degtay hijradii rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka hor. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah: kow, waxay beeninaysaa warkii gaalada ee ahaa in Muxamed rabbigiisa ka tagay ama uu carooday. labo, ilaahay baa rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam xasuusinaya wax ka mid ah nimcooyinka lagu maleystay sababta loo soo dejiyay. waxyiga ayaa mooda ka soo daahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam. kadib gaalada bay waxay dhaheen: Muxamedow, waxaan aragnaa rabbiga inku gooyo ee ku nicay. kadib la soo dejiyay suuradan. bismillaahi magaca Allah ayaan ku bilaabayaa. arraxmaani Allah naxariista guud u naxariista unkiisa. arraxiimi Allah naxariista gaarka u naxariista intuu rumaysay. wadduha barqinkii baa ku daatay. waleyli iyo habeenkii baa ku daatay. idaa sajaa goorta u mugdi noqdo. maa wadacka ee kama tegin nebiyow rabbuka rabbiga. wamaa qala mana uusan kuu cadoonin. walaalaakhiratu midda dambe ayaa khayrun khayr badan laka adigoo ka khayr badan min aluulaa midda hore ka khayr badan. walasawfa yucdiika dib baan ku siin doona nimcooyinka badan rabbuka rabbiga fatardaa oo aad raali noqon doonta. alam yajidka oo kuma helin rabbiga yatiiman adiga agoon ah fa awa mana uusan kuu cadoonin. walaalaakhira wajadka daalan midka luusan ah fahada oo alle kuma tusin. wajadka caa'ilan midka cayd ah faaqnaa oo alle qani kaama digin. faama alyatiima agoonka falaa taqahar ha qasbin. waama saa'ila midka wax weydiisanaya falaa tanhar ha qasbin. waama binicmati rabbiga nimcooyinkiisana faxadid ka sheekee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيق وجواري إسماعيل وحنيس ودقاء تفسير سورة النشرح لقيسي وعن waxay soo degtay hijrada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah: kow, nimcooyinka uu ilaahay ku maneystay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. labo, alla ayaa faray rasuulka sallallahu alayhi wasallam in joogtay camasha khayrka. bismillaah magaca Allah ayaan ku bilaabayaa. arraxmaani alla naxariista guud u naxariista unkiisa. arraxiimi alla naxariista gaar naxariista inta rumaysay. alam nashrax soomanan balaan laka adiga nebiyo sadraka laabtaada. ووضعنا صامنا دجين عنك حاجة وزرك علاسكاga الذي علاسكاس أو أنقذ كشن قري ظهرك دبركاga. ورفعنا صامان كوريا لك أديك ذكرك شرفكاga. فإن مع العسر علاسك جركي سوحا هذا يسرا فضيت. إن مع العسر علاسك جركي سوحا هذا يسرا فضيت. فإذا فرغت قرتا دمس أريمها أدونك فانصب عبادك كدبتو وإلى ربك حقي سنة فرقب وحكدونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيقي وحفص ياسر. waxaa idin soo gudbinayaa tafsiirka suuratu tiin. dhegeysi wanaagsan. waxay soo degtay hijradii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah: ilaahay baa ku daaranayaa inuu insaanka u abuuray qaabka ugu wanaagsan. insaanka iyo meesha xun ee uu ku dambeyn doono xaasayeesha dadka alle rumeeyay iyagoo ajir joogto ah bay leeyihiin. xukunka ilaahay ee cadaalada ku dhisan. bismillaahi raxmaani raxiim. magaca Allah ayaan ku bilaabayaa. allah naxariista guud u naxariista unkiisa. allah naxariista gaarka u naxariista inta rumaysay. watiina wazaytuun. tiinka ayaan ku daatay iyo zaytuunka. tiinka iyo zaytuunka waa labo geed oo ka baxa duulka baytuul maqdis, waana meeshii uu ilaahay ka soo diray nabi ciise. watuuri siiniin iyo buurta duursaynaa waa buur ku taala masar, waa meeshii ilaahay ka soo diray nabi muuse. wahada albaladi alamiin iyo midkan ee baledka ah ee nabadgelyada ah. baledka nabadgelyada ah waa magaalada maka, waa meeshii ilaahay ka soo diray nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam. laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim. xaqiiqii waan abuurnay insaanka toosin midda ugu wanaagsan baan ku abuurnay. thuma radadnaahu asfala saafiliin. kadib insaanka waan celinay koo hooseeya kaan ugu hooseynta badan haal uu yahay. ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati falahum ajrun gayru mamnuun. kuwii mooyee rumeeyey oo camal sameeyey wan wanaagsan waxaa u sugnaaday kuwaas abaal guud oo mid la goynayo oo aan ahayn. famaa yukadibuka bacdu biddiin. inaad beeniso kadib abaal guudka aakhiro aad beeniso. alaysa allahu biaxkami alxaakimiin. alle miyuusan ahayn kuwa wax xukuma midka ugu xukunka toosan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومرو محمد. وحيدين سو قدبنا تفسير كسورة العلق.
dhegeysi wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxay soo degtay xijradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hor. Waxyaabaha ay suuradan ka hadlayso waxaa ka mid ah: kow, muhiimadda ay leeyihiin wax qorida iyo akhrista inay sabab u yihiin aqoonta insaanka. labo, hanjabaad iyo gudin loo diray kuwa ka hor imaanaya diinta islaamka ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam faafiyo. saddex, rasuulka sallallahu calayhi wasallam ala faraya in uusan adeecin gaalada oo salaada iyo cibaadada alle ku dadaalo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Bismillaahi magaca alle ayaa ku bilaabaya. Arraxmaan naxariista guud, naxariista arraxiim naxariista gaarka oo naxariista inta hormaysa. Iqra akhri bismi rabbiga magaciisa adiga ku bilaabaya. الذي ربكاس أو خلق أبورة إنسان كخلق كأبورة الإنسان إنسان كمن علق حنجر ديك كأبورة. اقرأ أخر وربك أصغر ربك الأكرم أو كرمة بدني هي الذي ربكاس أو علم برا إنسان كبالقلم سيدا وحلق قلنك علمه برا الإنسان إنسان كما لم يعلم ما وحل لم يعلم أوسن أجين كلا إن الإنسان حادب إنسان كأنه قاقايم الرآه إنه سأرك درتي بوقايا استغنى إنه يسكف لنهاية إن إلى ربك وحادب إنسان كأنه إن إلى ربك وربك حقي سايهاتي الرجع سنقل شذي كري كذب أرأيت بالكورا الذي أرأيت بالكورا النبي الذي ينهى أرأيت بالكورا النبي الذي مدك ينهى عبدا أدون كربي إذا صلى كرتي تكنيا. أرأيت بالكورا إن كان هدي ويهي على الهدى مدها نيا كدل سكن أو أمر أمدت كفر بالتقوى لك عبسك. أرأيت بالكورا إن كذب هدي بيننا يسقو وتولى أو كتشس ذي عبادة الله ألم يعلم نيوسن أجن بأن الله ألا إن يرى أركيا كلا لئن لم ينتهي كتشوجن هدوسن كربتون تبكو رسولك صلى الله عليه وسلم كهايو لندفع بالناصية ولا وانك قبلنا فودا ناصية كاذبة فودا وانك قبلنا بنلئة خاطئة تاس أو كفسن فليدعو أبو جهل أو يرتو نادية قوله سندعو عنك نحا يرن دون الزبانية ملائكة نارتا كلا لا تدع جوجها أدعين واسجدوا سجود ربك واقترب أو عبادة ودو ربك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Caisha Cabdullaahi waxaan idin soo jeedinayaa tafsiirka suuratul qadr. dhageysi wacan. bismillaahi raxmaani raxiim. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah: kow, in qur-aanka la soo dejiyay habeenkii laylatul qadriga iyo fadliga ay leedahay habeenkii laylatul qadriga. bismillaahi magaca Allah ayaan ku bilaabayaa. arraxmaani Allah naxariista guud u naxariista unkiisa. arraxiimi Allah naxariista gaarka u naxariista inta rumaysay. innaa annaga أنزلناه سودجنا قرآنك في ليلة القدر هبينك ليلة القدر وما أدراك محاك أجيسي نبيو ما محيبو ليلة القدر هبينك ليلة القدر جاهي ليلة القدر هبينك ليلة القدر خير نحوك خير بديهي من 1000 شهر كن بلاد تنزل وحاسودكتا الملائكة ملائك والروح ملك جبريل فيها هبينك استحديثة بإذن ربهم ربي قد وقلانشيسا يسودقان من كل أمر رحل بأيسودقان سلام النبت قليو هي هبينكاس حتى مطلع الفجر لا فجر كلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Xafse Ibraahim waxaan idin soo gudbinayaa tafsiirka suuratul Kawthar. dhageysi wanaagsan. waxay soo degtay hijradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hor. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah nimcooyinka alle ku galadaystay rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam. jawaabta la siiyay gaaladii oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku jeesjeesi jirtay. bismillaahi magaca alle ayaan ku bilaabayaa. arraxmaani Allah naxariista guud u naxariista unkiisa. arraxiimi Allah naxariista gaarka u naxariista inta rumaysay. innaa anaga actaynaaka waxaan ku siinay alkawthar rabbiga kawthar fasalli ee tuko lirabbika rabbiga u tuko wanxar oo rabbiga u gowrac. ina shaani'aka midka ku cadaysan huwa isaga midka daba go-aan ah. ina shaani'aka huwa alabtar sababta loo soo dejiyey. aayadan waxay kusoo degtay Caas bin Awaa'il. rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii ay wiilashu ka dinteen buu dhihi jiray iskaga taga maxamed waa dhabar go-ay oo qofku abtirsan doona ma jiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin soo jeedinayaa tafsiir suuratul kaafiruun. waxay soo degtay jiradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hor. waxyaabaha ay suuradu ka hadlayso waxaa ka mid ah rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa la farayaa inuu gaaladii u sheegay inuu bari yahay iyo in aysan isku diin ahayn isagu diinta islaamka iyo haysta iyaguna midda baatilka iyo shirkiga. sababta loo soo dejiyay gaaladii Quraysh baa rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka codsaday inay sanad isla caabudaan sanadna sanamiyadooda caabudaan kadib la soo dejiyay
suuradda fadligeeda waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam inta uusan saaxan uu isku akhrin jiray ragcada koowaad ee sunnada salaad subax ka hor ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku akhrin jiray ragcada labaad ee witirka habeenka la tukada ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku akhrin jiray bismillaah magaca allah ayaan ku bilaabayaa arraxmaan allah naxariista guud u naxariista unkiisa arraxiim allah naxariista gaarka u naxariista inta rumaysay qul waxaa dhahdaa nebiyow yaa ayuha alkaafiruuna kuwan gaaloobayo laa acbudu ma caabudayo maa waxa tacbuduuna aad caabudaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabuda ma tihiin maa midka acbudu aan caabudo walaa ana aniguna caabudu mid caabuda ma ihi maa waxa cabadtum aad caabudi jirteen walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabuda ma tihiin maa midka caabudu aan caabudo lakum waxaa idiin sugnaatay diinukum diintiina waliya anigana waxaa ii sugnaatay diini diinteeda asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Zuhra Aadan waxaa idin soo gudbinayaa tafsiir suuratu nasri dhageysi wanaagsan waxay soo dhigtay hijrada rasuulka sallallahu calayhi wasallam kadib waxyaabaha ay suuradu ku hadlayso waxaa ka mid ah kow rasuulka sallallahu calayhi wasallam baa la tusayaa markuu Maka qabsado dad badan diinta islaamka soo galaan inay calaamad u tahay geeridiisa lawo iyo inuu tasbiixda xamdiga iyo istighfaarka badiyo markuu calaamadahaas arko Aisha Allah karaan noqday waxay tiri intay suuradani soo dhigtay wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam rukuucda iyo sujuudaba ku akhrin jiray ducadan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim بسم الله مقع الله ينكب لا ويا الرحمن الله نحريس بود نحريس أنكيسة الرحيم الله نحريس قارك أنا حريس أنت رميسي إذا جاء قرتي أوي ماذا نصر الله الله الكيسة والفتح يا فرشد مقالة مكة ورأيت أود أربته الناس تدكي يدخلون يقو سوق ليا في دين الله دين سأل سوق ليا أفاجا يقو قوح فسبح أنت اسمركت أربته تسبح سو بحمد ربك أدق وربك ومهد نقيسد واستغفره ولا دم دافو يديسو إنه ألا كان هو هذا توابا متوبت أقبلت بدن